wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Maanta waxaan galaynaa wax la yiraahdo frequency adverbs ama using frequency adverb. Qaabkeen u adeegsan karnaa frequency adverb. Marka adverb waan soo baranay waxa uu yahay, laakiin frequency-ga waxa la yiraahdaa how frequent qaabka uu soo noqon karo. Okay. waxaan leeyahay marka using frequency adverb ka adeegsanaya waxa kamid ah always waa mar walbo, usually marmar, often mar dhif ah, sometimes marar adi kala fog, seldom yani marar badan in kasi yar, rarely yani mar dhif iyo naadir, iyo never on weligeed ahayn yani no camal waay. Example like here I'll say they always drink tea with lunch. They waa labadooda. They waa plural. She, they laba waaye. So always means daily. Drink tea with lunch. They always maalin walba waxay ku cabaan shaah qadada. So dad waxaa jiro xilliga qadaynaan shaah inay cabaan jecel. Now shay kasta marka limit uu leeyahay. There are some things oo often loo adeegsan karo 100%. qaar loo adeegsan karo 5 to 6 to 10%. For example, if it's 100%, I will say always. For example, qofka hadduu sheegan boqolkiiba boqol ama yoomi maalin kasta u samaynayo, waxay say always. Example, Mary always eats lunch at school. waxaan soo baranay always eats, yani shayga verbka inuu qaato s. So esta wuxuu ku qaatay plural maahan, laakiin inay Mary tahay she always eats lunch at school. So Mary waa gabar, always maalin walba eats waxay ku cuntaa lunch at schoolka ayay ku cuntaa qadada. So micnaheeda inay mar walba schoolka ku cuntaa ama way qaadataa ama way soo iibsataa, markaas ay la imaadaa. Then 99 to 90%. So usually adeegsanaynaa. Mary usually eats lunch at school. Mary usually eats lunch at school. Usually or usually waa isla meeshii. So Mary usually waa boqolkiiba boqol ma dhihi karna, laakiin 3 ama 4 7 usbuuc hadduu 7 yahay, 7 maalin 6 maalin oo ka mid ah inay meesha ku cunto qado waa 90 to 99%. Then Josh always eats hamburgers. Josh waa wiil often eats wuxuu cunaa hamburgers waa hamburgerka ama fish burger ha noqdo ama hamburger. dada waxay u yaqaanaan hamburgerka inuu yahay hilib doofaar laga sameeyo, laakiin maan ham means shayga qaabka uu samaysan yahay inuu yani kor u taagan yahay, iskala hamburger. So Josh always eats hamburger. So waa 75 to 90%. yani boqolkiiba 90 ma aha, laakiin waa 75 ilaa 90 u dhaxay. waa often. Josh always often eats hamburger. Tia sometimes eats lunch at school. Tia waa gabar, sometimes waa marar, laga yaabaa 7 maalin inay 4 maalin ka tahay, waa marmar dhif ah ama 3 maalin. So marar dhif ah waaye. So Tia sometimes eats lunch at school. Tia sometimes eats lunch at school. Then Tia seldom eats lunch at school. Seldom waxaa dhihi kara marmar ma ahan, laakiin way ka yar tahay. wax marmar la dhihi kara ma adigu waa dhif waaye, no marmar dhif ah. So waa 5 to 10%, boqolkiiba 5 ilaa 10. So Tia seldom eats lunch at school. Tia seldom eats lunch at school. Horaa usoo fasirnay, waxay ku cuntaa qadada school. So Eva rarely washes her car. Eva rarely washes her car. Eva rarely washes her car. Eva yani rarely means yani sanadkii ama bishii hal mar inay baabuurka dhaqdaa laga yaaba gabadhan. So she washes her car rarely. waa marar dhif ah oo yani xitaa inta badan aysan jirinba. So waxaa ka siyar marka Jay never goes to the zoo. yani never means weligii muusan aadin zoo. So Jay waa wiil, never muusan aadin goes to the zoo. Zoo waa meesha xayawaanaadka lagu xanaaneeyo. So always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. waxaa la yidhahaa frequent adverbs. Frequency adverbs. Okay, practice yaraan sameynaynaa.
aragna marka inaan wax ka fahanay. Talia dash feeds her dog. Talia dash feeds her dog. So toddobada maalin way feed grace. Marka waxaan dhahaynaa always. Talia always feeds her dog. Okay, toddobada maalin sabti ilaa axad hal maalin waaye. Maxaan dhahaynaa Jara dash watches TV. Seldom, isn't it? Seldom watches TV. Luke dash cooks lunch. Luke dash cooks lunch. Qada ayuu wuxuu kariyaa casho. I mean, Luke cooks dinner. Sorry, not lunch, dinner. Luke cooks dinner. So toddobada maalin hal maalin uu ka boodaya jimcaha bas ah banaanka soo cashay inta kale intuu ka karinayo guriga. Maxaan dhahaynaa usually or sometimes. It is usually. So Luke usually cooks. He cooks dinner. Cooks uu kariyaa dinner casho. Dinner. Mossad dash cooks dinner. So toddobada maalin afar uu ka karinaya. Maxaan dhahaynaa sometimes. Yeah. Mossad sometimes cooks dinner. Other frequency expressions ka isticmaali karna maxaa kamid ah marka frequency expression kala isticmaali karna jirno oona ka ahayn always, never, seldom, sometimes, rarely, never aanan ahayn. Okay. She goes to the library once a week. Waxaan adeegsan karaa usbuuci hal mar. Once a week or twice a week. She goes waxay aadaa to the library library-ga ama maktabadda once a week usbuuci hal mar. Once a week. So a week has how many days? 7 days. So the whole 7 days she goes once a week. Hadday two maxaan dhahayaa twice a week. Once a week waa hal mar. Twice a week waa laba mar. Talaado iyo axad. Then 5 times a week. Usbuuci shan maalin. 5 times a week. Then I go to school 5 times a week. Aniga waxaan aadaa iskoolka shan maalin usbuuci. 5 times a week. I go to the movies twice a month. I go to the movies twice a month. Aniga waxaan aadaa inaan film soo daawado laba mar bishii. Twice a month. I go to the beach once a year. I go to the beach once a year. Once a year means يعني hal mar ayuu aadaa ninkan beachka. I go to the beach once a year. Just once a year. Once, 5 times, twice. So how many times ay waxaa loo adeegsadaa a day or how many times a month or how many times a week or how many times a year. meeqa jeer maalinkii, meeqa jeer bishii, meeqa jeer isbuuci, meeqa jeer sanadkii. Okay. I feed my dog every morning. Aniga feed waxaan quudiyaa my dog eygayga every morning subax walba. Every morning marka cashirkad aan qaadanayno wuxuu la socdaa kii hore ee ahaa simple present tense-ga ahaa because every morning was simple present. I ride my horse every week waa continuous. I ride my horse every week. Waxaan kaxeeyaa faraskayga isbuuc walba. I wash my car every year. Waan dhaqaa baabuurkayga sanad walba. Laakiin every is always used for singular. Hadday imaado plural every ma qaadanayso. So for example, every weeks ma dhigi kartid. Usbuucyo walba ma dhigi kartid. Usbuuc hal xabo waaye. Sanadka hal xabaad ka qaadanaysaa. Maalinka hal xabaad ka qaadanaysaa ama subax ama galab ha noqdo. So every week, not every mornings maaha, every weeks maaha. Every years maaha. Every year, every week, every morning. So every ereyga every markaad qaadanayso always waxaad ku daraysaa ereyga aad ku darayso inuu singular lahaado lama rabo inuu noqdo inuu plural lahaado lama rabo inuu noqdo inuu ahaado singular. So every week, every month, every year. S ma qaadanayso nounka aad ku dari doonto every. Okay. How often do you drink coffee? How often? Well, weydiyo waxaa la yidhi yani muddo si intee leeg aad u cabtaa kafeega. So waxay dhahdeen every morning subax walba. So su'aal weydiyo waxaa la yidhi so you drink coffee. You always drink coffee. يعني daily aad u cabtaa always. Yes ay dhahdeen markaan. Yes ha. May doesn't drink coffee. May ayada may cabto coffee. May doesn't drink coffee. I know she does drink coffee. So she never drinks coffee. Haddaysan cabayni does not means never. May cabto. She does not drink coffee.
does Dr. Abud take a walk every day? Dr. Abud يعني ma soo socdaa subax walbo. Does marka su-aashan waa la isoo weydiiyey qofka wuxuu igu yidhi anigoona verb adeegsan karin is are iyo am sideen su-aal ku samayn karaa markaan kasoo gudbo wh-kii when why what. So haddaan adeegsanayo does does waxaa loo adeegsadaa su-aalaha in laga sameeyo waxaana la yidhaahaa auxiliary verbs ama modal auxiliary verbs waa verb yani caawiyaal ah auxiliary waaye auxiliary waxaa la yidhahaa tusaale kale kalkaaliyaha wax ka sii yaraa jiro oo caawiyo soo kalkaali sida dhakhtarka kalkaaliya ka yar kalkaaliya auxiliary ka sii yara waa kaabo waaye. So does Dr. Abud take a walk every day? miyuu soo socdaa maalin kasto ama miyuu socdaa maalin kasto ama socod miyuu aadaa? No, he walks 5 or 6 days a week. maya waxay tiri wuxuu socdaa 5 ilaa 6 maalin usbuuci. Not every day maa marka 5 or 6 times a week su-aal la weyd marka 5 ama 6 maalin usbuuci wuxuu yidhi yes he dash takes a walk. He dash takes a walk يعني he often means يعني waa marar dhif ah. He often takes a walk. tan iyo kulanto dambe oo xiise leh markaan ku kulmayno frequency adverbs-ka oon b ku darayno waxaa idinkaga tagaya sida iyo nabadina.